degmada beledweyne oo kale inta mashaariicda taalo lacag 10 milyan ana kor lahaay oo degmada beledweyne kale ay leedahay waxa ku jira guriga duqa magaalada waxa ku jira gudoomiyaha gobolka hiiraan gurigiisa ku jiro waxa ku jira laamiga ku jira laamiyada waxa ku jira interlog magaaladaas degmadaas loo la dhigi lahaay mashaariic fara badan ee degmadaas nagala hor taagan yahay aan guud ahaan go'aankeeda qaadano in mashruuc kasta yimaado oo fulo dadka deegaanka ha qaataan taladeeda haddii aan ka faa'iideyso weyno mashruuc kasta wuxuu leeyahay deadline waxa imaanaysa in la yiraahdo Hirshabelle waa ka faa'iideyso weyse hal laga wareejiye state level loo wareejiyo imaanayso 4 sano taagan oo maleena mashruuca dawladaha hoose ee degmada beledweyne dadkii oo degmada u dhashaana hor taagan ma aha nin kor uga yimiday xaqeeda hadaan ka hadalno haddii la soo rur sheegay la yiraahdo mashaariicdan ha fushay ka leexda ummadan haddana wax ku soo kordhinayna wax u yimid uga leexda qof diidi karta ma jirto waa hor taagan waa dadkii ka dhashay degmada u dhashay kali in la soo rur sheegay bishay halaas bisay u baahan tahay waa idinku amaana ummadda ku nool degmada Jalalaq go'aanka qaadateen dawladnimada ciyaaya loo ciidamiyaa anaguna waxaan ballan qaadeen inaan garab idin siino idinku soo noqnoqono amnigana idin kala shaqeeyo horumarkana la idin kala shaqeeyo laakiin degmo kaste Hirshabelle taladaad ka geysan kartiin aad ka geysatiinaan idinka codsanaya hal dhibaan nahayo colaadan gacanta waxa kula jira sida arkayba sheegay nimankii nabadiidka ayaa fidnaynayo la idin kama raysan in la yiraahay rabaan dabay shidoo hayaan dadku waa kaas waa isdila in la yiraahay rabaan colaaduna ma ahan mid colaad shalaka cad iyo maantaani dadka deegaanka colaadana waa colaado boqolaal sano socotay waa la isdilay waxay isku dilayeen ma yaqaanin dad badan oo qaali ah lagu waayay ummadana hal meel ay ku wada nooshahay arintaas insha Allah waqtigeedii dhinay waana isku dayo badan haday wasiirka arrimaha gudaha tahay wasiirka maaliyadda gudoomiyaasha gobolada mar waliba waxaan u soo direynay mas'uuliyiin aan u soo direynay iyo taliyaasha ciidamada ama booliska ah ama military waa la dhex taagnay qoftii wadkeed gala way bixaysa laakiin dadaalyada ma dhinayn haddana waan nimiday insha Allah hadii la raali ka noqdo ugu sheedina waa la dhigaa idinkana waxa la idinka rabaa garab inaad nagu siisiin in gubashaas ay hirgasho dhalinyarada waa runta dalkan number xoog leh ka yihiin in laga faa'iideystaan la rabaa koow waxaan rabnaa dhalinyarada dalka inaan ku xoreyno haddaan la xoreyn intay ka shaqeynayaan intay ku noolaayaan igina waa la dilaa horumarna ma jiraayo dalka lagu xoreynaa qorogan wada qaadanaynaa waa la xoreynaa haddii dalka la xoreeyana ninkii rabo ciidan daraawiisha Hirshabelle waa la siinaa ninkii military rabo iyo heer federaal aado ama mas'uul rabana waa loo diraa insha Allah hadii la raali ka noqdo ninkii asoo xura iska shaqeysay aqoontiisa ku shaqeysayana ninka waxa qaanana xirfada la baraa oo ku shaqeysto kii waxa yaqaan aqoontiisa wax ku helaa laakiin koow horta bal dalka aan xoreyno fursado kasta yimaadana saas markaan leenahay dadka wax bartay inay ka sii faa'iideystaan haddana iyaga ka faa'iido ha abalay gareeyana mashaariicda la soo xayeysiiyay si cadaalad ah loogu qaybi doono hadii la raali ka noqdo ninkii wax bartana saas uga faa'iideysto ninkii aan wax baranna xataa ka wax barto waa inaan qoroyn qaadan horta cadawga dalka aan iska dul qaadno mashruucna kama fulaayo nololna kama jirayso meel cadawgaas oo dul taagan yahay horumarka u diidaaya koow bal horta aan iska dul qaadna cadawga insha Allah hadii la raali ka noqdo daraawiish Hirshabelle waa diyaar horena waa looga qoray qaabkan u qornana wuxuu ahay degmooyinkan ku qaybinay ama ku fadhiisanay degmo kasta number laga soo qoray heer hebel iyagu si qaybsanaan iyo siday u degaan laakiin degmo kasta number ka soo qoraynay isla eg haddana wixii la qoray sidaas loogu salay doona hadii la raali ka noqdo aad iyo aad u mahadsan tahay